Assalaamu calaykum akhyaarta soo dhawaada aad ayaan u faraxsan inaan muuqaalkan daawanayso fadlan channelka subscribe garay muuqaalkan like sar akhyaarta waxaan qaban doonaa tartan base mobile ayaan qaban doonaa waxaan qaban doonaa tartan base mobile ah ku tasho gacantaada ah waxaan u qaban doonaa tiro dad ah ma aha muhiim ah halka aad joogto liiga okay waxaa ka qayb gali doona liiga 8 qof oo kaliya ayaa ka qayb gali doona liiga waxa uu furmi doona 19 Abriil ahna 6 Ramadaan haddii ay dadka bataan waxa dhici karo isfahan waay aniga waan awoodaa inaan 100 qof liig u qabto balse kan waxa uu inoo ahaan doonaa 8 qof oo kaliya xamaasad ayuu yeelan doonaa aniga waxaan ahay kaliya qaban qaabiyaha tartanka ee miyihi tartama ama qof ciyaaraya qofka liigas qaado sharaf iyo karaama ay u tahay anigana sidoo kale sharaf ay tahay shuruudaha liiga la iskaga baahan yahay waa maxay marka inta uu liiga bilaaban hal biri ka hor inuu qof walba shuruudaha looga baahan yahay uu soo buuxiyo inuu qof walba uu soo gudbiyo magaca naadiga uu ku ciyaaro iyo owner name oo ah magaca uu qoran waliba si saxan magaca aan diiwaan gelino iyo owner name-ka oo ah magaca uu qoran inaan la bedelin ilaa uu ka dhamaado liiga WhatsApp group ayaan sameynayaa inuu qof walba ka qayb gala liiga waa inuu ku jiro groupka okay waa maxay sharciyada marka sharciyada liiga ka yaalo qofkii jabiye awood uma lahaan doono inuu ku jiro liiga iyo groupkaba xilliga ciyaarta la ciyaarayo waa waqti go'an oo munaasab ah aniga soo dejiyay haddii aad ku soo xaadir weyso waqtigaas waxa lagu lahaan doona 3 gool oo aad kan doonto inaad ka soo noqoto kulanka xiga ciyaarta daqiiqado badan ayaa jira ciyaarta saaran karo ciyaarta waxay noqonaysaa kaliya 8 minute oo kaliya ciyaarta qofka ay ka go'do ama qadka ka xumaado waa sida lagaaga badi 3 gool ayaa qofka kale loo qorayaa qofkii dib iyo fowd laga dareemo xitaa haddii uu joogo semi-final booskiisa waxa awood u yeelan doona inuu qof kale soo galo waliba si uu semi-final ku ciyaaro xog aniga sida aan liiga u sameynaya marka sida ayaan aniga liig u sameynaya liig aniga ma ahan waxaan isku aadi doona dadka waxaan ku sameyn doonaa application kaas oo aan garaneyn dadka balse isku aadi doono muuqaal ayaan ka soo sameyn doonaa marka aan isku aadka application ku sameynayo xogta liig ku saabsan waxaan mar walba soo gelin doonaa groupka WhatsApp iyo waliba TikTok labadaba ugu dambeyn macluumaad ah oo liig ku saabsan TikTok iyo WhatsApp group ayaan ku soo gudbi doonaa ka soo qayb gal wanaagsan dhamaantiin